السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوا هذا عشان إني turtle graphics aan ku baranaynay waxa aan sii wadaynaa casharradeennii waxa aan baranaynaa functions cusub. Functionkeena maanta casharkeena function ugu horeeya waxa la yiraahdaa set heading function la ayaan baranaynaa. Waxa la yiraahdaa turtle.set heading. Set heading waxa waaye meeshii aan dhihi lahaa left u jeeso, right u jeeso, left u jeeso, right u jeeso aan dhihi lahaa ee ka bacdina aan socodsiin lahaa. set heading waxay ku suurtagelinaysaa inaad dhahdo meeshaas u jeedi ka bacdina haddaad dhahdo hore u soco dabcan meesha u jeedo ayuu u soconaya. Tusaale aniga oon isticmaalin waxba haddii aan comment saar halkan oo aan dhaho run marka ugu horeysa haddaa fiirso falaarta waxay u jeedaa horey aan waxaynu weyneeyo falaarta si aan u aragno turtle dot ben size waxaan leeyahay 5 ka dhig si aan u muujino haddii aad fiirso horey ayuu u jeedaa amaba shape ama ka dhigo turtle dot shape waxaa ka dhigtaan leeyahay turtle si aan u aragno halka uu u jeedo madaxiisa. haddii aad fiirso madaxiisa horey ayuu u jeedaa in la dareemi karaan rajaynayaa. haddii aan dhaho set heading madaxa waxaa u jeedisaa 90 degrees angle waay dabcan. haddaa fiirso wuxuu fiirinayaa markan kor ayuu fiirinayaa. haddii aan dhaho waxaa ka dhigtaa 270 waxa uu dabcan soo fiirin doonaa hoos soo fiirin doonaa. marka halkaan u jeedaa marka hore by default kor haddii aad u jeedino waa 90 180 waa gadaal 270 na sida ku muuqanaysa hoos ayay noqonaysaa. haddii aan dhaho 180 sidaas oo kale ayay noqonaysaa. haddii aan rabnana angle dhexe waa u jeedin karnaa dabcan gadaal u jeestay 180 in la arki karo ayaan rajaynaya. haddii aan rabo waxaan dhihi karaa tusaale ahaan 135 angle ah u jeedi. haddii aad fiirso xogaa yar ayuu qalloocinayaa oo dhankaas oo kale ay u jeedaan. marka set heading markii aad dhahdo oo meesha aad u jeediso ka bacdina waxaad dhigi kartaa move waa dhaqaajin kartaa. tusaale marka ugu horeyso maadaama uu hore u jeedo haddii aan rabo bal dhaqaaqa leh inta aan jeedin waxaan leeyahay turtle dot forward waxaad hore u dhaqaaqdaa let me say tusaale ahaan 100 ka bacdina waxaan leeyahay waxaad jeesataa 90 intaa dhaqaaqo 90 jeeso. haddaa fiirso 100 دقائق كبعدنا 90 أي كورجس مركب 100 طبعا هو 100 بكسل سيدا هو شيء بكسل كنا وشاشة إيو نبعه هذا طبعا هدي عن كل اليو وعن له ماشى عن هاي 100 دقائق مركب 90 جست 100 دقائق أما عنده لو 100 دقائق كرحوا عسيا وديريو وعليه واحد جست 100 يسديته مركب جست الشدة مرة وكعبر قالنا يا أنجل كي كو وجهه كعبر قالنا يا هذا ما دام 90 وجهه 90 كالقدر مرة هين eber ayuu u jeedaa ayaa ka soo qiyaas qaadanaysaa 180 marka gadaal u jeeso ayay noqon doontaa si uu hadda fiirso marka wuxuu sawiray speedka ayaa ugu badan umaleynaya aan 1 ka dhigo si aan u aragno. haddii aad fiirso sidaas ayuu u jeesanayaa. aan ku celiyo mar kale waxaan leeyahay waxaan rabaa in dhameystiro shape-kii hadda aan sameeyay oo kale oo aan ka dhigno square ama rectangle oo kale aan ka dhigno. waxaan leeyahay waxaad u jeesataa 270 markan 90 maadaama u jeestay 270 waa hoos dabcan. haddii aad fiirso sidaas oo kale ayuu samaynayaa. marka waxaa dhiman oo keliya in uu dhaqaaqo 200 in uu soo dhaqaaqo si uu u buuxiyo shape-kii aan masaweynay si uu dhammaystiro. wuxuu ku tusayaa in uu dabcan dhankii aad rabtay uu u jeesanayo. marka set heading waxay bedeli kartaa lefty iyo right meeshii aan dhahaynay oo aan jeedinaynay ay ku bedeli kartaa. sidoo kale waxa ay set heading ay ku sameynaysaa meeshii markii hore aan dhahaynay 90 isku xijinaynay iska fiir halkan marka hore eber waaye dabcan angle-kii ujeedo waa horey. haddii aan dhaho 90 macnaheedu waxa waaye kor u jeesanaya dabcan aan lefty dhahay oo kale waaye 90 degree ayuu jeesanayaa. 180 degree eber marba kasoo bilaabanaya marka 90 ku darba dhahayno 180 degree ayaan jeedinaynaa. haddii aan rabo hoos u soo jeestana markii hore meesha u jeedo ayuu ka soo qiyaas qaadanaya eber 270 waa hoos. haddii aan dhaho 360 na waa meeshii markii hore uu u jeeday oo kale ayay noqonaysaa. waayahay waxaan baranaynaa function kale laba function oo kale oo lidhaa marka qaar markii aan dhaqaajinayna qalinka marka aan dhaqaajinayna turtle-ka ama falaarta mar walba hadda waxbuu sawiraya marka dhaqaaq dhahna. marka aan dhaqaaq leenahay mar walba inuu wax sawiro inaan rabina laga yaabo marka qaar. tusaale
aan tirtiro intan waxaan leeyahay forward markaan dhaho 100 haddii aad fiiriso 100 waxbuu jiidaya waxbuu sawiraya haddii aan rabin ka hor inaan wax sawiro laakiin meesha uu hadda tagay uu tago waxaan dhihi karaa function waxaan isticmaali karaa lidhaa turtle dot bend up waxa waaye qalinka kor u qaada marka forward haddii aan dhahno ama backward oo socod uu ku jiro ama functions kale aan arki doono oo lagu socodsiiyo markuu dhaqaaqaba qalinkii waxbuu sawiraya haddii aan dhaho laakiin bend up dhaqaaq waa meeshii uu joogo ka tagayaa meel kale uu tagayaa laakiin waxa ma sawirayo haddii aan rabnaa hadda qalin kor u qaada dhahay kabacdina waxaan dhahay hore waxa u socotaa 100 pixels now haddii aan rabnaho haddaa fiirso uu socday laakiin waxa ma darograynayo si aan aad ugu dareyno aan lambarka badiyo tusaale waxaan leeyahay 200 oo pixel socod shaashada aan waxay weynaysto mar kale ku soo laabanaya waxaan leeyahay halkan turtle dot setup waxaan leeyahay 1024 oo balaaca iyo 750 shaashadayda ayaa sidaas cabirkaas aan isleeyahay ama macquul tahay shaashadaada dabcan ku barobay adigana wixii kula macquul ah haddaan fiirs markuu socday haddii aan rabo waa sii badin karaa dabcan 300 aan dhihi karaa haddii aan rabo waxaan dhihi karaa leftiga aad ama set heading sida aan hadda baranay oo kale dot set heading waxaan leeyahay waxaa ka dhigtaa waxaa usii jeedisaa 270 tusaale ahaan haddana waxaan leeyahay kabacdina socodsii 270 markii uu jeesto macnaheedu waxa waaye 270 hoos u soo jeestanayaa kabacdina 200 soco ayaan leenahay haddaan fiirso wuu soconayaa marka wuu soconayaa laakiin waxa ma darograynayo haddii aan rabo marka koowaad uu soo dhaqaaqay inuu wax darogray haddii aan rabo bend up aan dhahay function kalaa jirto oo ah qalinkii inaan soo ceshan karo turtle dot bend down marka maxay ku sheegaysaa sida ku muuqanayso qalinkii haddaba wax qor waayo marka forwardkan hore bend up ayaan dhahay qalin kor qaad forward soco waxaan dhahay bend down qalinka dhulka dhig forward soco markaan dambe waxba sawiraya kii hor laakiin wax ma sawirayo sida kuu muuqan doonto soo jeed marka haddii aan rabo ka waran inaan sawiro tusaale ahaan laba xariijin oo isgarab yaal ama saddex xariijin oo isgarab yaal haddii aan rabo inaan sawiro laba xariijin ama saddex xariijin oo isgarab yaal haddii aan rabo inaan sawiro maxaan samayn lahaa bend size-ka waa iska yaraynaynaa waxba uma baahni weyninkiisa sidiisii aan ku daynaynaa waxaan leeyahay halkan turtle dot forward tusaale ahaan forward waxaan leeyahay 100 na waxaan rabaa in aan ku soo celiyo halkiisii tusaale ahaan uu socday xariijin uu sawiray aan isla sawirno dabcan xariijin uu sawiray waxaan rabaa tusaale ahaan hoosteeda inuu xariijin kale uu ku sawiro waxaan dhihi karaa dabcan qaab ka mid wuxuu noqon karaa turtle dot bend up qalinkii kor u qaado waxaan leeyahay gadaal u soo laabo turtle dot backward tusaale ahaan backward gadaal hadduu usoo laabto 100 oo kale gadaal usoo celinaya sidii hadda oo kale haddii aan rabana anoon gadaal usoo celin ayaan hoos usoo dhigi karaa wax yar set head haddii aan dhaho halkan aan bedelo tusaale ahaan bend up qalin kor u qaadaan dhahay turtle dot waxaan leeyahay set heading waxaa madaxa u jeedisaa 270 hoosaan rabaa inuu usoo jeesto kabacdi wax yaraan soo dhaqaajinaya waxaan leeyahay turtle dot forward waxaa soo dhaqaajisaa 20 oo kale aan intaan tijaabiyo waxaan leeyahay run haddaa fiirso waxaa soo dhaqaaqay 20 kiina yartaa mudda aan badiyo konton aan dhaho now konton markaan soo dhaqaajiyo waxaan leeyahay line haddana sawir inta aan lineka sawirin marka lineka inta aan sawirin inaan gadaal u jeediyo waa turtle dot waxaan leeyahay set heading waxaa u jeedisaa dabcan 0 ka bilaaba aan dhahnay 180 aan leeyahay gadaal u jeedi 180 markuu jeesto ayaan rabaa inuu haddana uu xariijin uu sawiro inta uu sawiro marka maxaan leeyahay turtle dot bend down xariijintii qalinkii diyaarso kabacdina waxaan leeyahay turtle dot waxaad socotaa forward 100 aan tijaabino waxa soo bixi doono ani laftayda I have no idea laakiin waxaan is leeyahay laba xariijin ayaan sawirnay soo jeed haddaad sidaaskaa weynaynaysaa dabcan haddaad rabtana waa badin kartaa waa dheerayn kartaa si aad u aragto xariijinta iyo sida ay wax noqonayaan 200 aan leeyahay sida kuu muuqanayso xariijin uu sawiray uu soo booday isagoo waxba sawirin haddii aan rabo hoos haddana intaan imaado ayaa mar kale xariijin kale sawir karaa hoos imaada mar kale sawir karaa
and so on haddii aan bend down isticmaalin bend up haddii aan isticmaalin maxaa dhacay fiiri bend up haddii aan isticmaalin commentiga saaraya wuxuu sawirayaa dabcan xariijin kabacdina wuu soo jiidayaa haddana wuu soo sawiraya marka haddaa fiiriso kanaan ka dhex saaray meesha bend up aniga oo isticmaalayo sidaas oo kale ayaa dabcan aad shaybiska iyo wax kugu soo dhacayo aad u suurtageli kartaa inaad isticmaasho haddaa rabto sida aan hore usoo aragnay waa qarin kartaa calaamadda inta aanan ka bixin waxaan rabaa anoo ka faa'iidaysanayo set heading iyo bend down iyo inaan hal example oo kale aan kusoo gabagabeeyo waxaan deysanayaa shaashadda oo keliya waxaan ku tusayaa haddii aan sawirno circle waxaa dhici lahaa waxaan leeyahay turtle dot circle waxaan leeyahay circle-kiina tusaale ahaan 100 ama 200 kii ah haddii aan ran dhahno okay dhacay uu leeyahay wuxuu leeyahay model turtle has no attribute sirle and as we circle way dabcan erka dabcan sida aan hore u sheegay waa la aqriyaa si aad u fahanto ama aad u sixi karto now circle ay u tusay circle kan weyneeyo beesha 100 aan dhahay 200 aan dhaho shaashadii xogaa weynta hadda 200 haddii aan dhaho sida kuu muuqanayso kor ayuu galay sidoo kale wuxuu ku tusayaa inuu kor geynayo kor ayuu ku sawiray haafka hoos oo dhan uu ii bannaan yahay waxaan rabaa circle-kayga shaashadayda dhex bartankeeda inay timaado marka shaashada dhex bartankeeda si uu u keeno circle-kii aan ku celiyo mar kale speedkaan badinayaa dabcan waxba gooniya hadda uma baahnayn slow noqdo haddii aan ran dhahno wuxuu ku tusayaa sababta uu dhexda uu kor u aadayo waa maxay because dhex bartankuu joogaa marka hore turtle-ku dhex bartanka markuu joogo halkaanuu ka bilaabayaa marka sidaas ma rabo inuu sameeyo waxaan rabaa halkan isagoo joogo inuu hoos soo aado falaartii la arkaa rajeynaya hoos markuu soo aado uu halkaan oo kala yimaado ayaan rabaa circle-kii in uu masawiro marka waxaan rabaa meesha uu ka bilaabaya hadda inuu ka bilaabin in uu soo boodo uu halkaan yimaado kabacdina uu circle-kii uu sawiro aan isla dhisna intaas adiga oo dabcan kuu muuqanayso inta aan marka waxba sawir dhihin waxaan ka hormarinayaa circle-kii inta aan la sawirin waxaan leeyahay marka hore turtle dot set heading waxaa madaxii u jeedisaa haddaad dabcan isticmaali kartaa right oo hoos usoo jeedinaysa set heading waxaa madaxii u jeedisaa 270 markuu u jeediyo macnaheedu waxa waay hoos u jeedinaya soo maa waxaan leeyahay dhaqaaji turtle dot forward waxaa dhaqaaqdaa tusaale ahaan 200 inay la arkaan rabaa marka hore qalinka ma qaadaya 200 markii uu dhaqaaqo ayaa waxaan leeyahay turtle dot set heading haddii aan headingkii eber aan kusoo celin dabcan meesha u dhaqaaqaya masawirada meesha usii jeedo u dhaqaaqaya 200 hoos iyo 70 hoos u jeeda marka hoos usii sawirayaa ma rabo sidaas inay dhacdo marka eber aan kusoo celinayaa kabacdina waxaan dhahay circle-kii sawir marka bend up iyo bend down lama isticmaalin laakiin aan ku tuso sida waxa dhacayo halkan ila arag aan joojiyo waxay rabaa speedka ayaan rabaa markaan si aan isla aragno haddii aad fiiriso hoos usoo jeestay wuu soo waday circle-kii uu sawirayaa oo dhammaystiran marka circle-kii aan rabo way tahay laakiin maxaa naga qaldan keliya xariijintan in aan iska tirno inkastoo ay ku tusayso dabcan radiuskii oo kale ayuu eg tahayba laakiin xariijinta ma rabi marka maxaa iga dhiman oo keliya marka uu soo jeesto 270 inta uuna soo dhaqaaqin inaan dhaho bend up oo qalinkii kor u qaado uu soo dhaqaaqo kabacdi aan dhaho bend down qalinkii uu dhigo oo drawingkii uu bilaabo waxaan leeyahay marka halkan aan kan iska soo yareeyo waxaan leeyahay halkan speedkii waa aragnay set up set heading 270 ujeedi markaan uu dhaqaaqayo kan waa kan wax daroogareynaya mar raba in la daroogareeyo waxaan leeyahay turtle dot bend up qalinkii kor u qaad waxba aqoon markaan 200 dhaqaaq 200 markuu dhaqaaqo set heading eber u soo jeeso ayaan leeyahay angle 0 oo ah dabcan meesha markuu u jeeday then waxaan leeyahay haddii aan dhaho aan tijaabino sida maxaa dhacayo waxaa ma daroogareynayo laakiin uu dhaqaaqaya bahalkii wuxuu ku tusayaa circle-kii in uu shaqaynayo laakiin sawirkii ayaa naga maqan maxaa naga maqan marka hal step oo lasti step ugu dambeysay markii aan dhaho eber u jeeso inta circle-kii uunan sawirin in aan dhaho turtle dot bend down casharka waxaa igu dheeraaday waxaan ku dhihi lahaa cabaar jooji kabacdina adiga samee jooji samee waqti badan si aad ugu qaadato laakiin waxaa ku fiican inaad mar walba waxa aan samaynay inta aan samaynin in aad ka fikirto waxa soo socdo iyo sida aan u samaynayno ran haddii aan dhahno haddaa fiirso soo dhaqaaqay wuu yimid kabacdina
wuxuu draw garaynayaa circle-kii sida aan sheegaynay oo kale ayuu samaynayaa sidaas ayuu circle dhamaystir u samaynayaa dabcan waxaad ku samayn kartaa sidii aan sameynaynay inaad filling ku samayso wax ku buuxiso colorskiisa bedeshay iyo wixii la midka ah intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa inta aanan ka bixin waxaan kaaga dhigayaa exercise cashar xoogaa dheer ayuu casharkan maanta waxaan samaysaa 4 circle waxaa ku sawirtaa geeska midig ee kore iyo geeska bidix ee kore geeska bidix ee hoose iyo geeska bidix geeska midig ee hoose marka 4 circle shaashada afarteeda dhinac ku kala sawir adigoo isticmaalaya dabcan forward inta dhaqaajis halkan keen soo sawir halkan imaaw soo sawir halkan imaaw soo sawir qaab kale oo loo dhaqaajiyo ayaa casharkeena xigo aan arki doonaa shaashada dualra intaas ayaan kusoo gabagabaynaa casharkan aad ay u dheeraa laakiin waxaa isleeyahay macluumaad badan oo muhiim ah ayuu ximbaarsanaa waa ku mahadsantihiin waqtigiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh